ninkii Trump ahaa caawa fankiisa ayaa baxaya marka la fiiriyo gobolka bariga dhexe waxa uu leeyahay marinkii istiraatiijiga ahaa ee Hormuz ahaa minooyinkii ay ilaalada kacaanka wadanka Iran dhigteen guud ahaantiiba waxaan ka saarnay oo ciidamadeena ayaa noqday kuwa runtii hawl aad iyo aad u fiican qabtay dunida ayuu caawa waxa uu leeyahay waxa aynu qabanay waa inaad nooga abaalgutaan talow Trump runbuu sheegaya mise waa rag iska dhicin hadalkiisa iyo sheekadiisa sidee loo tilmaami karaa maxaase lagu fasiri karaa hadallada isdaba joogga ah ee maanta ka soo baxaya Israel fuusta dagaal oo la yaab leh ayaa waxay isku mar u riixday Shiinaha iyo waliba dawladda Masar waxay leeyihiin dowlatus ay wadamadan sameynayeen maalmihii ugu dambeeyay dhinaca ciidamada ah waxay noqonaysaa dawladda Mareykanka inay waxba yahay tahay marka la fiiriyo xaalkeeda iyo waliba talaabada iyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan dhinacyadan wadanka Pakistan war ayuu ka soo arooriyay dhinaca Iran markii uu la fariistay isla markaana ninkii General Qasim Munir ahaa Trump uu isku hoostuuray ninkii Trump ahaa ulaha wartolay xagaalaha diyaan nahay Pakistan ay waxaad sameysaan nimankan Iran la yiraahdo waa ku dhig baxaya dunidana wixii aan raba hadii aan u sheegay maalinba maalinta ka dambaysa lugaha ayaan dhiqal la sii galayay soo celiya oo miiska wada xaajoodka iyo diblomaasiyadda keena hadda ugu dambeyntii Iran wada xaajoodka iyo warkeeda dhinac ayuu u xirmay xasan la eegaya dawladda Mareykanka oo markii ugu horeysay mar kale dalbatay in dalka Iran lala fariisiyo balse ay dalabyada Tehran uga jawaabto iyo waliba General Qasim Munir in la garxiiro iyo waliba in hadallada uu soo bandhiga la qaato labada mid ay noqonayso iyana waan isla qaada dhigi doonaa khiyaarta in la socotay ciidamada badda ee dalka Mareykanka iyana warba ka soo baxaya oo dhinaca Iran la xiriira waxana ay dhammaantood taabanayaan mustaqbalka cadaadiska iyo cunaqabataynta dhinaca kasta looga soo ooday wadankaasi la yiraahdo Iran dawladda adduunka oo xoog badnayd ee Mareykanka ahayd ee laga heebaysanayay waliba cid ay gacan u qaadal oranayo talo maroodiba cagmariyay hadda waxay u egtahay dawladda Iran oo muddo curiyaan laga dhigay in ay noqotay cad ay calaalin weysay oo cunaha u taagan sidee haddaba gobolkan mustaqbalka dunida u jangoyn doona maxayse dawladaha caalamka ee loolanka ugu jira guud ahaanba hogaaminta dunida ay ugu arkaan bar istiraatiiji ah iyo mowqic lagama maarmaan ah in gobolka bariga dhexe ay gacanta ku dhigaan Iran macnaheedu maaha kaligeed dagaal inay ku jirto laakiin Mareykanka oo halkan tabar iyo waliba taag u waaya in uu ku xalliyo dhibaatooyinka taagan iyo waliba turqiya weynidiisa iyo murqaweynaanta ciidamada Mareykanka oo halkan dhibaatada taala ku xallin waayo waxay ka dhigan tahay Iran in ay gadaal ka taagan yihiin oo daaha gadaashiisa ay ku jiraan dawlada waaweyn yaa adkaan doona waa su'aasha aynu caawa dooda barnaamijka qaybta comments-ka aan idin dhigi doono magaceena iyo meesha aad joogtaan ku bilaaba kadibna aragtideena cidda gobolkan ku adkaan doonta adigoo aragtida adkaashiyaha waxaad ku salaynaysa raacinaya ayaad hoos noo dhigi kartaa hilmaamina laakiin aad saartaan muuqaalka meel dheer gaari doona si YouTube-kana uu koro oo meel dheer uu gaarana waa inaad subscribe tiraadaan saaxiibada Facebook nagu xiranna qaybta faallada ayaa aragtidooda ku qori karaan muuqaalka like ay saari karaan haddii aad ku cusub tahay page-kana waxaad oran kartaa follow waa la yaaban yahay maalinba waxa uu soo riixayaa aragti cusub isagoo adduunka uu sheegaya dawladda Iran inay u muuqato mid taag iyo tabar badan aan lahayn oo ay dhibaatooyin weyn wajahayso halka dawladda Mareykankana lagu tilmaami karo wadanka kaliya ee ka adeeganaya gobolka bariga dhexe Iranna ku xiray geed ay ku seetaysan tahay halkaasna u baahan tahay in lagu qoodiyo option kana ay laba mid tahay in Mareykanka uu ogolaado nolol iyo waliba inuu yiraahdo way isaga huleelayaan adduunka laakiin hadda warka ugu weyn ka imaanaya waxay tahay Trump inuu leeyahay marinka Hormuz waxay meena dawladda Iran ay dhigtay difaac iyo waliba xayndaab u ahaa hadda meesha waa laga saaray ciidamada Mareykankuna waxay noqdeen kuwa kaliya ee hadda
awoodooda iyo tabartooda ee adduunka la yaaban yahay ayuu Trump doodiisa caawa ku leeyahay. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa salaasada sheegay in ciidamada badda ee Mareykanku ay u sheegeen in dhammaan minooyinkii badda ee ku jira biyaha caalamiga ah ee marinka Hormuz laga saaray ama la qarxiyay oo hadda aanay qatar dareemeyn buu leeyahay maraakiibta halkaasi isticmaalaya ee raba inay gooshaan biyahaasi. Trump ayaa qoraal ku daabacay baraha bulshada gaar ahaan boggiisa warbaahinta ay ku xiran tahay ee Truth Social waxaana uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay xaqiijiyeen in minooyinkii ku jiray marinka muhiimka ah la nadiifiyo. waxa uu sidoo kale sheegay in Iran loo digay in markab ama doon kasta oo isku dayda in ay mar kale minooyin ku aasaan halkaasi si degdega loo burburin doono oo loo marsiin doono buu yiri ciqaab iyo waliba tallaabo aanay filanayn. madaxweyne Trump oo doodiisa faankaasi wata waxa uu intaa ku daray in Mareykanka uu adeegsanayo awoodda hawada sare si uu la socdo meel kasta oo ka mid ah marinka Hormuz. waxa uu qeexay in sidoo kale lala socdo buu yiri goobaha uu ugu yeeray Mount Big X iyo waliba 3 xarumood oo nuclear-ka ah. uu sheegay in Iran la burburiyay balse ay mar kale doonayso dhaqdhaqaaqyo inay ka sameynayso laakiin wuxuu yiri yaa weylakum waxaad ugu dhacawaad ogaan doontaan. Trump oo si hadlaya waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in maamulkiisa uu si buuxda u dhaqangeliyo siyaasadda uu ku tilmaamay dulqaadkii waa dhamaaday zero tolerance oo ku wajahan buu yiri dhigaysa minooyinka badda. marinka Hormuz ayaa wali ah mid ka mid ah meelaha ugu xasaasisan ee khilaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladda Iran waxaana uu sidoo kale sheegay in hoos dhac weyn laga dareemayo dhaqdhaqaaqa maraakiibta ganacsiga ee marinbiyoodkaasi istiraatiijiga ah. marinka Hormuz ayaa muhiim weyn u ah buu yiri ganacsiga tamarta caalamka maadaama uu yahay waddan muhiima oo ay maraan maraakiibta shidaalka qaada ee ka baxaya dalalka qaliijka. sidaas darteedna dowladda Washington ay doonayso in ay horumar weyn ka gaarto dagaalkaasi. Trump intaasi oo kaliya ma aha faankiisa caawa. warbaahintii ayuu hadba u abuuraya jiho iyo waliba qaab ay wax u taxliiliyaan maadaama isaga uu yahay warsamayaha ugu weyn ee caalamka xilligan dagaal adagna kula jira dowladda Tehran. hasaatee waxa uu leeyahay markab ama doon kasta oo dalka Iran qaada tallaabooyinkaasi waxa ay ka hesho waa la yaabi doonaan. waxana uu sidoo kale leeyahay waynu burburin doonaa cid kasta oo Iran gacan ka siisa cunaqabataynta aan saarnay. Washington waxay qorsheynaysaa buu yiri cunaqabatayn kale oo dheeraad ah taasoo ujeedadoodu yahay in cunaha la qabto dowladdaasi oo ay isdhiibto ama ay dhinaca kale yiraahdaan waxba ma qaban karnay Trump oo abeed ama waan isdhiibnay. xogihiisa maaliyadda Scott Bessent ayaa isniintii sheegay in Washington ay qorsheynayso inay si adkayso cadaadiska dhaqaale ee Iran iyadoo ujeedadu ay tahay in la sii weeqo dhaqaalaha Tehran. xogayaha maaliyadda Mareykanku waxa uu qeexay in uu taxgelinayo adeegsiga cunaqabataynta labaad ee loo yaqaano secondary sanctions oo lagu cadaadinayo dalalka iyo shirkadaha si wada xiriirka dhaqaale ee Iran taas oo muujinaysa dowladda Washington inay la gaari doonto dharbaaxa aad u culus. waxa uu sidoo kale uga digay dowladaha diida in ay ku biiraan ololaha cadaadiska Mareykanka inay la kulmi doonaan cawaaqib culus buu yiri taasoo dowladda Mareykanku ay leedahay haddii aydan hooskiina ka socon dowladahaasi waxaad noqon doontaan kuwa iyana shalay doona. talo maxay sameyn doonaan aanu dhaafno waqtiga. tallaabooyinkan ayaa muujinaya in Washington ay isku mar adeegsanayso cadaadis military iyo dhaqaale si ay Iran ugu qasabtay inay wax ka bedesho mowqifkeeda. laakiin Muxsin Rida oo dhawaan hadla waxa uu leeyahay kolley Trump waa Faris sida loo malaynayo maaha. dowlad 250 sano jirta oo xadaaradeeduba ay kooban tahay dowlad ku dhawaad 3000 oo sano jirta oo malaymayo in ay xididda siibi doonto. haddii xiisadan ay sii kororto qalqal kasta oo ka dhaca marinka Hormuz waxa uu saameyn ku yeelan doonaa xaaladaha ugu adag ee gobolkaasi taaban doona ayaa la leeyahay. iyadoo marka Trump uu waxa soo qayladana iyo waxa soo dooda uu caawa dhigayo
sheekadu dhinac kale ayay ka socotaa alaabtan waxa la yiraahdaa yaa dabaalaho duurka loo diraa ninkan Trump la yiraahdo oo waxan oo faan iyo dooda dhigayo dhinaca kale hadda markii aad ka fiiriso General Caasim Munir ayuu telefoonka u diray waxa leeyahay General howl baan ku diray bal sheekada ka waran xagee wax marayaan nimankii Iiraan ahaa may aqbaleen inay ila fariistaan marka ninkan alaab hoosana waa wataa laalada kore Brunigana waa na tusaya ama kubadda uu leeyahay ciyaaryahan xariif oo garoonka ku jiraan ahay laakiin dhinaca kalena waxa uu leeyahay oo hintiisa iyo baroortiisa baxaysa ay warbaahinta caawa sidaas u fasirayaan haddii aan eego Pakistan ayaa warbaahinteedu waxay sheegeen in horumar muhiim ah ay ka sameeyeen wadahadallada ay la leeyihiin Iran kuwaas oo ku saabsan xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Washington iyadoo dadaallada diblomaasiyadeed lagu doonayo in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii Afgaradka Islaamabad ee hore loo dhaxdhigay baa la Iran iyo Mareykanka balse dhamaaday marka la fiiriyo tallaabooyinkii hore loo qaaday iyo 60 maalmood oo guud ahaanteedba ku dhamaatay si macno darro ah wasiirka amuraha gudaha Pakistan ninka la yiraahdo Muhsin Naqvi ayaa salaasadii sheegay in horumar muhiim ah laga gaaray kulanka magaalada Tehran uu kula yeeshay madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian kulanka waxa sidoo kale ka qayb galay taliyaha ciidamada Pakistan Field Marshal Caasim Munir Naqvi ayaa sheegay in kulanka looga hadlay xiisadda Iran iyo Mareykanka iyo xaaladda guud ee bariga dhexe waxna uu ku tilmaamay kulanka mid wanaagsan oo miro dhala isla markaana waxa uu sidoo kale xusay in looga hadlay tallaabooyinka suuragalka ah ee dib loogu howlgelin karo Afgaradka Islaamabad haddii aan si kooban kuugu fasiro macnaheedu waxay tahay in Iran laga dhaadhiciyo bal inay mar kale aqbasho inay u ekaan karayso Mareykanka inay la fariisato in ay arintaasi u dhigantaba ama Iran ay soo aragtaba inay u qalanta xilligan Mareykanka inay la fariisato yaa loo qalmaya Mareykanka yaa wax u qalmaya Iran maxaa laga wada hadlayaa in Iran kulan laga qaato halkan markaad si qoto dheer oo istiraatiiji ah u cabirto una fiiriso waxay ka dhigan tahay gobolka bariga dhexe in lagu kala adkaaday waxaan rajaynaynaa buu yiri dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadda ee wadada u xaaraya horumar dheeraad ah iyo in gobolka laga gaaro nabad waarta ayuu yiri Naqvi Iran oo Pakistan u marsiisay shuruudo Mareykanka ka yimi laakiin dhinaca kale Iran waxa laga guntay qodobo kale oo aad muhiim u ah dhanka Iran mas'uul ka tirsan madaxtooyada ayaa sheegay booqashada taliyaha ciidanka Pakistan Caasim Munir ay Tehran u soo hoysay baaliri gool diblomaasiyadeed oo muhiim u ah kuwaas oo natiijada la filayo in ay soo baxdo maalmaha soo socda madaxa ku xigeenka isgaarsiinta iyo warbaahinta madaxtooyada Iran Mahdi Tabatabai ayaa sheegay in booqashada Munir ay ahayd mid wax go'ool ah isagoo beeniyay warar iyo saadaalo hore oo ku saabsanaa ujeedooyinka booqashada dhinaca kale wakaalada wararka Iran ee ku dhow taliska ciidamada ilaalada kacaanka ee tasniim la yiraahdo ayaa sheegtay in Tehran ay Mareykanka u gudbisay iyadoo loo sii marinayo baaliri taliyaha ciidamada Pakistan shuruudaha ku saabsan marinka Hormuz sida laga soo xigtay ilaa ku dhow kooxda wada hadalka Iran booqashada Munir laguma talagelin in uu Tehran u geeyo fariin hanjabaada oo ka timid Washington balse ujeedadu waxay ahayd in la furo wado cusub oo wada hadala isla markaana Mareykanka loo gudbiyo mowqif iyo shuruudaha Iran Tehran waxa ay dalbanaysaa in dib loo dhaqangeliyo Afgaradka Islaamabad taas oo marka la fiiriyo dowladda Washington ay u aragtay qalad istiraatiiji ah oo dhanka wada hadalka ah oo ay hore u galeen sida lagu sheegay wakaalada tasniim shuruudaha Iran waxa kamid ahaa in Mareykanka uu ku laabto Afgaradka Islaamabad isla markaana uu fuliyo qodobadii ku jiray Iran waxay si gaar ah xoog u saaraysaa qodobka shanaad Afgaradkaasi kaas oo xiriir leh qabanqaabada amniga iyo socodka maraakiibta ee marinka Hormuz qodobkaasi waxa uu dhigayaa in Iran ay qaado tallaabooyin lagu xaqiijinayo maritaanka ammaanka ee maraakiibta ganacsiga ee Hormuz iyadoo sidoo kale la kaashanaysa wadanka Oman tani waxay u aragtaa Washington in maamulkii marinkaasi laga farabaxiyay oo aagaasi juqraafi siyaasadeed ahaan hab nuclear ay u isticmaalayso dowladda Iran
Caasim Munir ayaa isniintii booqday Tehran isagoo dhaxdhaxaadinaya wada hadallada Iran iyo Mareykanka intii uu joogay caasimadda Iran. Waxa uu la kulmay madaxweyne Pezeshkian, gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Baqir Qalibaf iyo xogayaha sare ee golaha amniga qaran ee wadankaasi General Muhsin Rida. Trump oo digniin adag ka bixiya marinka Hormuz waxa uu leeyahay cid kasta oo halkaasi timaada waxaynu ka samayn doonaa buu yiri dhamac inaan ka waraabino oo aan kaga adkaano dagaalka, haddii kale waa in inaga rabitaankeena iyo yoolasheena ay meel mariyaan. waayahay arinta Iran iyo waliba haddii aan halkaasi ku dhaafo Mareykanka oo runtii aad moodo in la kala adkaaday, laakiin nin kasta baraaro gooni ah iyo jihaynta bulshada uu banaanka keenayo. haddana Israel ayaa iyada tallaabo kasta oo la qaado waxay ka arkaysaa inay dhimashadeeda soo galayso. hadda dowladda Shiinaha iyo Masar ayaa mar kale fuusta u riixday. waxay leedahay Mareykan oo gobolka bariga dhexe bilaash baaban Iran ku haysanaya meel kale balaayo ka soo butacday. arrinta ugu weynse waxay ahayd in Israel ay ka baqanayso arrimo la xiriira dowlatus wada jira oo ay sameeyeen ciidamada Shiinaha iyo kuwa dalka Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar. waxaana Al-Qaahira maalmihii ugu dambeysay ay si weyn isku haystaan dhinaca Israel. warbaahinta Israa'iiliyiinta iyo xarumaha cilmi baarista iyo sirdoonka ee nidaamka ayaa si dhow ula socday baa layidhi dowlatus ballaaran oo dhanka cirka oo ay si wada jira u sameeyeen ciidamada cirka Shiinaha iyo Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar, kaas oo ay ku jireen tababaro iska horimaadyo dhanka hawada ah oo u dhaxeeya diyaaradaha dagaalka ee labada dhinac. wargeyska caanka ee Israel Hayom ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha nooca loo yaqaan J-16 axadii ay sameeyeen tababaro dagaal oo cirka ah oo ay hor yimaadeen baa layidhi diyaaradaha kale ee Rafale ee Faransiiska lagu sameeyay, kuwaas oo ay isticmaalayeen ciidamada cirka ee Masar. dowlatuska ayaa qayb ka ahaa tababarka militariga ee labada dal oo lagu magac daray Eagles of Civilization 2026 ama ilbaxnimada gorgornimada ah, waa hadiiba sidaas loo qaadan kara sanadka 2026. ciidamada cirka Shiinaha ayaa duulay masaafo ka badan 6,000 oo kiiloomitir iyadoo duulimaadyada uu qaatay ku dhawaad 9 saacadood. intii uu safarka ku jireen ayaa diyaaradaha dagaalka Shiinaha lagu sameeyay shidaal ku shubis hawada, waxaana la socday diyaarado shidaal iyo waliba diyaarado kormeer iyo hagitaanka hawada, iyadoo diyaarado nooca qumaatiga u kaca ay qayb ka ahaayeen howlgalkan. tababarkan waa mid ka mid ah baa layidhi dagaalka cirka ah ee loo yaqaan halka iyadoo diyaaradaha J-16 ee Shiinaha iyo diyaaradaha dagaalka ee Masar ay sameeyeen isku imaad lagu tijaabinayo xeeladaha dagaalka ee masaafada dhexe iyo kuwa dhow. warbaahinta Shiinaha ayaa sheegay in ay tani tahay markii ugu horeysay ee J-16 ay si tababara ula kulanto diyaaradaha kale ee Rafale dhinaca Faransiisku ay sameeyeen. diyaaradahan labada dhinac waa kuwii ku loolamay dagaalkii Shiinaha ee dhacay May 2025. dagaalkaasi oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ka dhacay gobolkaasi koonfurta qaaradda Aasiya. mid ka mid ah duuliyaasha Shiinaha ayaa sheegay in xirfadda duuliyaasha Masar isku duwidda wanaagsan iyo habka adag ay u qabteen tababarada ay aad uga yaabeen dhinaca Shiinaha, isagoo xusay in labada dhinacba uu midba midka kale ay ka barteen khibrado aad muhiim u ah, taas oo muujinaysa baa layidhi isbedelada gobolkaasi ku soo socda. caqabad ku wajahan saamaynta Mareykanka ee gobolka, halkan waa meesha Israel ay fuustada ka riixday. warbaahinta Israel ayaa dowlatuska u aragta calaamad muujinaysa in xiriirka militari ee u dhaxeeya Qaahira iyo Beijing uu sii xoogeysanayo, iyadoo arrintan lagu fasiray caqabad inay ku noqon karto saamaynta iyo awoodda Mareykanka ee bariga dhexe ee waqooyiga qaaradda Afrika. Misr waxay sidoo kale waa dal xiriir istiraatiiji ah la leh Mareykanka, waxaana ciidamadiisu ay si weyn u isticmaalaan hubka iyo diyaaradaha Mareykanka oo ay ka mid yihiin F-16 hase yeeshee Qaahira ayaa sanadihii ugu dambeeyay isku dayday inay si ballaariso goobaha ay ka hesho hubka maadaama wax badan laga bartay dagaaladii socday.
dhanka Shiinaha Dhoolatusku waxa uu siinayaa in ciidanka cirka Shiinaha uu fursad uu ku helo ku tijaabiyo diyaaradda J-16 iyo habka howlgallada fogfog ay uga qayb qaadan karayso gobolka Bariga Dhexe waxay biyaha hoostooda la isugu jiro hadda waxay muuqataa in la isku soo socdo waayahay khiyaarta ay nala socotay haddii aad halkan nala soo gaarteen aad baad u mahadsantihiin dhaqdhaqaaqyo waaweyn ayaa gobolkan ka socda lama oga jihada rasmiga ah ay wax aadi doonaan laakiin Iran iyo Mareykanku waa isku biro tumanayaan Trumpna fankiisa ayaa baxaya Pakistanna waxay leeyihiin Iran ay ma u qalantaa inaad Mareykanka la kulanto yaa adkaaday fadlan magacaada iyo meesha aad joogto ku bilow aragtidaadana qaybta comments-ka inoogu dhig ha ilmaamin in aad YouTube-ka muuqaalkan like saarto channel-kana subscribe aad tiraahdo haddii aad Facebook-ga nagala socotana like saar muuqaalka Facebook-ga page-kana follow soo dheh nabadgelyo